kulankan oo xalay ku dhigay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waliba aan iska jartay hadhawaayo iyo taageero weyn oo loo muujiyay guddoonka cusub ee jaaliyadda Koonfur Galbeed ee Waqooyiga Ameerika Maxamed Macalin Cabdi iyo waliba ku-xigeenshay Cabdikariin Sheekh Isxaaq isla markaasina iyo qaban qaabiyeen dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku nool magaalada Muqdisho walibana ku qayb galay qaybo shir duwan ee bulshada ku jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee ku nool caasimadda dalka siyaasiyiin iyo xildhibaano lamada aqal ee baarlamaanka deegaan doorashadii ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo marti sharaf kale aanu kumida dhalinyaradii ku qayb galay kulanka iyo waliba iyo hambalyeeno hoggaanka cusub isla markaasina waliba iyo ballan qaadana in la shaqeeyo doonaan idinka waxa idin leenahay marka dadku waxa doortay macnaheedu jaaliyada guud ahaan waxa leenahay hoggaanka aad doorateen hoggaan in la shaqeeysan oo waxa loo baahan in la shaqeeyo hoggaanka maxalliga garab gacmo wada jira wax gooyaan hadii maanta mas'uul loo dhiibo oo aan la sheegay in laga saaxido ayagan kaliya wax qaban karaa markaas waxa loo baahan yahay in wada shaqeyn la muujiyo kalsooni la muujiyo isku xirnaan la muujiyo dhalinyaradu intaas araga haytan beesmalsiyo waana meeleen ba gudoomiye ana leeyin gudoomiye ku xigeen ana leeyin xafiis ma qaban xafiiska iyo jeebsha ku dhiibide walkas iyo suubsade macnaha picture kama maskantiin ku biifaday dad Mareykan roogo jaaliyad walan suubi alay leh dad ladan amaay taas qabiin ku biifadahay eedanka faraxsana inuu ogeek introogn am hambal yahayn am hadawaayahayn gudoomiye ku xigeen la doorida Koonfur Galbeed oo Ameerika iska xirnaashada way muujiyaan ee jaaliyada Koonfur Galbeed ee geek ka dhaqaaqan ayaan ka faraxsanaa kulankii waliba saasato ku qayb galay xildhibaano lamada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isla markaasina iyo deegaan doorashadii ee Koonfur Galbeed waliba iyo guddoonka cusub iyo ka adkeeyana ku shaqeeyo ku wada jirka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadiyo matalayaan guud ahaan reer North American Hambalye doorashadii doordan lama ruux oo ka habboon waan istaahilan aan doordan yoon may ku rajeeyo insha Allah in howlagiyo horti wadan dalka iyo dadka meel ku sii wadaan guud ahaan deegaamada Koonfur Galbeed wadan meel ku sii wadaan sidii horta biyoon ka shaqeeyaan insha Allah ka shaqeeyaan contribution show ifikrisho in maskaxdeena deegaanka aan baahan dadka aan baahan dhalinyarada ka soo jeeda Southwest ee ku nool dunida daafaheeda ee adduunyada meel kasta oo adduunyada kamida ku nool ayagana inay isku dayaan inay lead ka noqdaan jaaliyada Southwest aad iyo aad aan maaragtay aan u soo dhaweynaynaa inay dhalinyaradu ay noqdaan dadka lead gareynaya dadka ku nool maxaan ku yiraahdaa dalka dibadiisa jaaliyada Waqooyiga Ameerika gudoomiye maday iyo gudoomiye ku xigeenshay iyo dhamaantiyo wali kala dardaarmaanay hormuudniinka nagadan hal shay lama shay saddex shay oo dan guud oo un wada qabsado koran antii la ka mashquul fadi waxyaabaha uu ka shal bedelna haan un isku madka aanan madayaw eedan ku shaqeynay taas horta dardaarta guud runtii dadeeda qiimo badan saacadihii uu isroogni oo hadaladii waxa ku bahay dad hami umadeed iyo meel eraay xambaarsan anna umatun meeliye roogdo horan ku dhagaagdo hormardeed iyo meel eraay ya dareemayaan insha Allah ta'ala way rajeeyay guul way rajeeyay hormar mas'uuliyadii leendhibi aniyo guud doonay Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ku rajeeyay 29 December tii hadhaafani ee sanadkii 2019 iyo waliba magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka lagu dooraday gudoomiyaha iyo ku-xigeenshay ee jaaliyadda Koonfur Galbeed ee Waqooyiga Ameerika gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda yaana ku qaybgalayaalka iyo waliba dadkii abaabulay xafladda aan kuma hanagay ilaa saqadka telefoonka ku qaybgalay munaasabadda Maxamuud Timade Radio TV Koonfur Galbeed Baydhabo